الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan caawa insha allahu tacaala halkan ku qaadan doonaa darsi ka mid ah duruustii siirada nebiga calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim. waxaase ka xumahay anigoo ku celin doona darsigii aynu hore u soo qaadanay, sababta oo ah waxaa jira kulli qolooyin weel meelahan haysta oo iyaguna aad moodani sababku barhkood ku lahaayeen darsiga siirada bilowgiisa weelkoodina ilaahay markay naga hagaajinna ood moodayn maydhaxdii way iska marantay markaasna. ama waxaan leenahay runtii macdira baan ka cunay dadka markaasi ay maalintooda dhegaysten aan dib ugu celinayno. bismillaahi raxmaani raxiim. darsigeenan aynu marlabaad ku celinaynaa waxa weeye waa darsigii 13aad ee duruusta siirada nebiga calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim. waxaynu darsigii ka horreeyey ku soo tilmaamnay nebigeenna calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim sanadii 8aad gebagabaheedii in uu magaaladii taa'if la odhanayay iyo ahlu taa'if uu xoog nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dayey. markii dambana nebigu calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim ay isku dhiibeen ana islaameen. waxaa markaasi darsigeenna caawa ka sii qaadayna halkaasi innagoo caawa wax ka tilmaami doona sanadii sagaalaad ee hijrada hore ee darsigeennii hore u dambaysay dabadeed dhacday. nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu diray sanadii sagaalaad ee hijrada bishii rabiicul awal oo bishii 3aad ee bilaha carabida ah. waxa uu diray ciidan uu hogaaminayo saxaabigii qiimiga badnaa ee caliy bni abi taalib. ciidanka nebigu wuxuu u diray in ay soo dumiyaan sanab ka mid ah sanabyadii qurayshi ay caabudaysay. sanabka ay qurayshi caabudaysay sanab ka mid ah sanabyadii ay caabudayeen carabtu. quraysh horeynu u soo dhammayna warkeeda. sanab ay caabudayeen qolo ka mida qolooyinka carbeed lala odhan jiray reetay. waxa weeyaan waa qolo qabiilooyinka carbeed ka mid ah oy qadariyaan oy caabudaan. ayuu nebigu u diray inuu soo dumiyo caliy bni abi taalib. caliy bni abi taalib markuu meeshii weeraray waxa uu ku soo qafaashay rag fara badan iyo dumar buu ku soo qafaashay. ila way yaaceen. dadkii la soo qabtay waxaa ka mid ahaa ninkii carabta caanka ku ahaa deeqsinimada iyo jacaylada la jeclaa ee la odhan jiray xaatim taa'i. ninkaasay carabtu ka dhigatay maahmaah iyo tusaale xagga deeqsinimada. ninkaa xaatim taa'i inan uu dhalay ayaa gacanta lagu soo dhigay. markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tooyday ay isku sheegtana inay tahay ina xaatim taa'i waa uu sii daayay nebigu calayhi salaatu wasalaam. iyada oo weliba kule yaa rasuul allah, rasuulkii ilaahay bay tiri intay u timid وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من جنة فمون علي. وحيث الرسول كي إلهيو غاب الوافد كي سعضالي ويقا مقناضي وحيوشي دا إذي مسؤول كاهين وولالكين عدي بن الحاتم الطائئة ومقناضي كي مسؤول كي إيقاها. وحينادي آبعين وجهه وحوي مجنون. وانقطع الولد وبطنا يعني وانقطع الوالد آطاهينا كلا قونا يووف انتي. أنا وحنا يبيتري دوق قبودي إنان خدمي أون شقي ما أولي كراي إسكسي كيدا بيت الرسول كي إلهي. بكا نبي بوحور مركز موافدون كان مقناضي السعوتي وقما وعيتري وعدي بن حاتم
وقرتي إلى إنا حاتم الطائي تهي صلوات الله والسلام عليه مركز مسي دينكو كليا النبي عليه الصلاة والسلام انتو علي بن أبي طالب ويا رأيولي وحي أيدين ويديستي قادين هي الصحيبة نصيب النبي عليه الصلاة والسلام حوين دي وين نقطين وحي صرفون نقطة إسلام الإسلامي ولكن علي بن يعني حاتم مركي أي لابنتي وحي أتت علي بن حاتم مركاسا وحي كتري يضو وقلنتي والله بيتني ننكي أنيقى إقفاشي سعادة سقعنت آنو قلي وطو فلي فعل آنو آبها فنجرين حدو آبها وناق لهان جرين وناق آنو آبها ولقي قارين أيو سميي الوحن قمرتني يا بيتني إيتي راقبا أو راهبا أرضا أطن أضيقو أنقل أم أضيقو نقلين اسكني منك وناقي سيدة بمدي ما مركز من عيار adigood ammaanna bixin waxbana weydiisan iska weygo isku tuurun adigoo ogol oo yaana jecel iyo adigoon jecelayn oo ku sandulaysan labada mid oo insan adeegna xaakim wuu waraystay xaqiiqadii wuu ogaaday nin nasraaniyoobay buu ahaayo diintii nasaarada haystay oo diinka wax ka garanaya isagoon ammaan bixin buu nabiga isku soo dayay salawaatullaahi wasalaamu calayh markuu nabigu warsaday buu yidhi makii ka cararay ilaahay iyo rasuulkiisa haadin ma waxaad ka caradaysaa buu yidhi inaad tidhaahid laa ilaaha ila allah maya buu ma waxaad ka caradaysaa haddaba allahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn maya buu markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dhinac walba waa uga tilmaamay wuu islaamay wuuna ashaatay saxaabigii qiimiga badnaa markaasaa nabigu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu caleyh qur'aan buu ku akhriyey وتلمامي إن يهود علماء أي كذب ربيال سوى إله سبحانه وتعالى قرآن سكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعكيشن سوفيدون إن ولا تدون أي ربيال كيشن متى سألت عديك عور يا رسول الله قرمان ربي كذب ولا صوفيا هي منك لو فقيه دين تيقان حضمان ربي كذب وعنبكم مياني وحيدين حرانيان أيضا حراشا وحيدين كحرمان أيضا اسكحرمين حتى بصيدا بطرب ونقتهم أحد تستقوا وحنا كو شرعية وحكا حرموا وحنا كو علانية عبد الله دين كيسو خلافي وكو قلاتي إساقاب رب النمو وقلاتي سيدا بنو كفهمنا حديث كالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تاسو وحيا الرير أو تعضي سندي سجال فوحي إنه إيماننا فيشنا إنه عاو كتير من الرجب أي رؤسو بودينا واحد عاي فيشن رجب وكلا بقال كي وينا تبوك الأوراني وعن عاو إن شاء الله تعالى هرنعا مقيب تغركات المامينا بقال كي وينا النبي وقال الرومان كلا قالي قسوة تبوك الأوراني قسوة تبوك سيد صوت المامي وحي دعضي سندي سقالات ايدي تلدا بيشان رجب ايني كتير ما ايامي دعضي تقال كان وحي نوران كارنا وتقال كي جبا جبي كالصوعي حتى ايا باطل كار وتقال كي دقال لدى النبي وود تنبيه وتقال كي عدي حقنا حق نمبيسا باطل كان بادل نمنيسا قالت بغط الماضي أول كستا إيتال كستوينين هتيجا بالإهر ويهين إلى موسيان مؤمنين تلوحوا فاسنين إنو لاتات مؤمنين تهين أنتم الأعدون إذيك أقرين يوعدين كأبتانيس سببت الدقال كان الحوار سببت الدقال كان الله صوت حنار نروس تيني ورسل وصومرني وحين أكسونين نين إنو نبقوا دري إرقيئة oo warqad qoraala gaarsiinaya ninkii mustara xukumayay amba Suuriya xaggeeda xukumayay oo waxa weeye ninkaasoo ruumaanka raacsanaa warqadaasoo cadaynaysa oo leh aslim taslim walilaahi diinkiisa oo golow waa badbaadiyey ninkaasoo la odhan jiray saynu soo marnay alxaaris ibn umayr waxaa dhexda u fadhiistay nin ka mid ah
يعني قسانيينتي oo la oranayay Shurxabiil ibn Amr al-Qasani ayaa dhaxda u fariistay wax ceeb ahayd adduunka nin kale u sida amba laba umadood kale gudbinayay in la dila xaaraan bay ahayd intuu soo qaltay ninkii dilay nabigu ka cadhooday salawaatullaahi wasalaamu calayh ciidan buu kiciyey aynu soo marnay qaswa Mu'ta oo uu hogaaminayay saxaabigii qiimiga badnaa uu hogaaminayay Zayd ibn al-Haritha waxaanu amray inuu halkii ninkan lagu dilay joogsado su'aal weyn waatii ka dhacday dagaalkii cajiibka ee Mu'ta gaaladii oo 200,000 oo gaal ah in ay iyar oo mu'miniinta koobani ku jiribdigeen weynagii soo marnay boqorkii Ruumaanka ayaa waxa u jiribdigay saxaabo yar oo saxaabadii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh tiisabtii waxay ku noqotay adduunyadii oo dhan bay argagax ku noqotay عرفتي نبي عليه الصلاة والسلام إسلايد واتسكير علين كريسان ونفضلتي وشيكتي إلهي كوي باتي النبي يجيبه وفوري وضا إسلامين فقالين أضيقي رومان كهيستي هرقل أما هرقل وحد تراهدبا نكاسنا وقل دعمه مرانا الله على وشرف الله سمعتي سيبا أوكا قشي سبو يسلي ميركو أعرابي أو سبو أركي بادية أو مدود حكومي ayaa intuu u tagay waxa weeyaan uu sameeyay ciidankiisa oo tareer aragtay leeyahay hor joogsaday waxa uu Herakle goostay inuu ciidan soo diro ciidankaas oo rag uu soo xulay oo Nabi Muhammad u soo dhigay darsi lama ilaa waarisuusnayso wasan isagu ictiqaadtay si ay sumcadiisi baaba'day ay u soo laabato war xaqiya baadiliya dagaalansiin jireen حتى باطل لولا باكد أي طيار وحين أنتي وبس سومرين حقهم باقرية لكن نقول مع الحق وين نسمع البعض ويس ويديني ولي إننا أوبا عندك إنه دليل كدقيسن طبك حتى إنه أكثر مرين طبك بعض الكينو أركينا يروقكم الصحمي متى أدوه تسوى مطوع حديث ويدنيزا أدوه ما أنت حقا طيب مثل أنت بعض كاتا هذا أنت حقا طيب وتفكر رين دونتا سعوا الله لكن هذا أنت بعض الكتاي وأستاذ مريض دونتا تاس وعمر كاسل كتو سيسا هرقل وتسوه عيدا بلارا نرجي سوق قبت ويناب وبضع وصوتي وحكسو داي مركز النبي عليه الصلاة والسلام ومقل النبي إن عيدا له هروي عيدا كان له هروي وهرقل وأفرطم كن أونين وعيدا كيسي قيمي بدلاس نسليه وكوكا صونا أي صوت أفرطم كن أونين وسوداي نبي مقلين صحابة وي مقلين إلى هير بين تسيان صحابة وي كعب سقبين هذا الدور ويبتسيطوا دعيتونا حتى عمر بن الخطاب أي نوع ابن الخطاب من بان صاحب هاي وحان السبيني وانا رسكوك هاي سنين متكاينا مرنا البالمات كريوس رشقي سنية وحاولي وشقتك أما إنتان كلام مقالين متكاينا نجيبون لتشوغي متكاينا ومقنانين سنبيغا وحي إلهي وكسو يغتشي وإذنك أفاهينيو كل بك تشوغا إنتو وقمتوك كلاوتيغو ونسبة بدلين رسكوك هاي سنين أنا ما طمطبو مالتي سائلكي وحق النبي تشوغي أيو أقل كيف تقول جو أرنك الأوي موشيغي markaasaa intaan naxay oo argagaxay baan idhi intaan soo booday anoo gumbe ayaa waxaan idhi markaas wallahi arri weyn baan dhacay wuxuu idhi arri weyn baan dhacay ma hubo wuxuu yahay baan idhi markaa wuxuu idhi ajaati qasdaan ma ciidamadii baa soo duulay ruumaanku ka dambeeyey oo fiirs hadaas waxay kutusaysaa cumar wixii weynaayee dhacay wuxuu ka dhigay marhuumaankii baa ina soo galay ayuu marhuumaankii ayaa ina soo galay waxay tahay kutusaysaa saxaabadu inay dareensanaayeen inaanu Herakle xarin ee uu doonayay inuu mar un ka aargoosto nabigeena calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim iyo saxaabadii waxaa ku soo baxay markaasi cabsi xadlaafa baa ku soo baxay cabsida ay ka cabsi qabaan nimanka ruumaanka ay ka cabsi qabaan maranu nimaadna markaasi nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa dhaqan iyo dabeecadu ahayd in dadkii siiradayna in isweydiino markuu dagaal gelayo maxaa dhaqan u ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan baa soo kooday
إلا إيجي والله شعري مكاسين لو قيب قدر الله سيعان سوى تقيسناو waxaa tabeecadu ahayd markuu qofna uu jawaab waayo sooman waxaa tabeecad nabiga calayhi salaatu wasalaam u ahayd markuu duulimaad adag qaadayo inuu tawriyeysto sarbe hadduu meel ku duulayo inaanu sheegin hadduu ku duulayo masalan bari galbeed buu marka hore u baxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam oo kale tusaale weyn ana meeshii meelaan ahayn buu u baxaa سنك مرافق وركة البلعي إيه كان بصاص فيه بلايد وركة إنت نقليان أي قراد حقه ذا كوب عين هذا هو ذي صاحية مثلا هذا دوني وكيد بلو ويعا لو يعدوك البحي ما كان سعدوا على لو يعدوا والدين أيام قالوا على الكاس وكانت نجيب بلو تجي ما كان حد قال له تيجو مركب بان نبي عن بابه هذا منافق الله ما هو العرق يا صوما أي نبي ذي توي على يقول له ميال تجي لما النبي عليه الصلاة والسلام دقال الذي الساسة أنا ويطلع صونايا لكن ما توحل قرية متر ماشي اللي تجي يا وارو بير حلقة تقال كانوا دعوا حاجة كلوي روكوا صحراء أو مناء وعيدا كله كوي وإلا قرية الرباع قوها بومبا معها ونور واحد ثوقة يستمر لك علي وعد مالا يستمر لك علي وعد يعني وعوي أود هذا ضوء بعض القرين توحل قرين يا معين كنتور النبي عليه الصلاة والسلام مو قيلي وكله وطوع ذي الشعب وإنه عن تجينا وإنه أبحينا بقال أن لقينا الرومان وإنه كدولينا الروم طبوق بعض الدقائق نوي الحب سجينا روكي قالنا البغران إلى آخر رقليس كيلي رقل إنه وإيمان ما يحلكم والكل تجيني الله أكبر نبي يقول عمر كان في أمرين إنك أنا وحبها يسوي على السير إنك أنا كاسي هنتكف لنا يسوي أطبع المجال كله كارمي نبي يقول قلنا واتني وروه وحلفه أكبر نبي يقول يمين هي الجروبني من والأمور الحبي أكبر يوحي كديار وموال بيروي وصحراء كله أو مناطق وحي هي بمجرد بيبادي قاعدين من دم حيان يقول أرضي النبي قوي ما صلوات الله والسلام عليه قالت يا رسولك إلهي وما كان وحبنا المهين الإله سبحانه وتعالى وأكسي الدنيا وحنا وذكر قالوا وعاون أن قبحنا فكان النبي يقول عليه لا أجد ما أحملكم عليه وعرض قال يا وعرض كسر مثل هالباي وقلوا كلمة وجهوا معنا إلى تولوا ويتشستين وأعينهم تفيض من الدم يضع إنه للعلم أي كسو جوستي ويقول قوة يسير كل يعني جليسوا أي كيستين أولي بكم حين أوليان شيات كذي كرر حين أوليان سنرى ما كان موقتين الله ولا تقاطي أي أنت ونقاقيا نقوي إنه وكان عمل خير السمينين أيس يتشين إذا هو يتشيدين نقبنا لكن هو اسمه تشيدين وعندك أركية ويا مكاس إلما أي إسقويين مكاسا وعوي حينه ألا يجد ما ينفقون وحلقون نفقيه إيا وحي لبعان من نبئين واير أو بيد بين الأويين مكاس النبي عليه الصلاة والسلام سعادتي سمالك هاي أي إياه بحوله ذي بيديقيا وحي من يا عثمان بن عفان باين وحولي رسولك الله يقب إنت المسلمين تسيعوا بقال قرار inta muslimiinta si hantiya u noqoto 100 awr buu keenay 200 awr buu keen oo macaararkoodii wax kasta u leeyihiin si loo raaco haddana 100 kale ayuu keen sidoo uu wadayba wuxuu gaarsiiyay inuu Cusmaan la baxa maalinta 900 oo awr buu la baxay iyo 100 faras marka lacagta la iska naaf 900 awr markaas intaaba wuxuu siinayaa dadkii jeetagin إننا قام بقولني تجارة وبخيرين إلهي دين كيس وبخيرين لكن نرشة هي تعرف في أنت نطبعون قوة بحنا لما أنت هذه كوبرة في سبيل الله اللي نويديسو نورو ضمقني مكاسو عطكاني لكن كان مركز مع الله على كل رنين كان انتظر مع الله على عشرين مقاعية وصرية وحولية وحغريبو كان نصية كنت فرن أيه غير أو بيك شنطة بقرة يضونين عملها الوعد بوادي عكنون لكن أقول لا شنطة قول إلهي بركي وربع وكأوبت اسكول يجيسون وعلى قفستان يوم على مثل
شوط باقي قصبت وتسوبت كل جيساو لما سيحرق بودغي كان بارد دقاقي حاكينه قلبي جدا انجيجي إلا قلبي جنبه وأنا كسر بحياة قلبنا قلبنا وإنجيل ما كان أي بخيل عثمان كان ما قال سواركين أنا وحنا وحبت ترين أضروا كان فقال بقولت أول مع ركوب لو بقول يوم كان ما قال سو بقول فرس ما كان لعبت كيري ليس كده أنت يقول ما عثمان عبد الرحمن بن مركز النبي يقول عليه أنت عثمان سوش تيستأركي أيو لي ما ترى الله ما عمل بعد اليوم عثمان ما أنت تبذل وحكة سمية وحمبه وحيبه يملي النبي عليه الصلاة والسلام تلك ربع ما كان موقف اللي تشوقه واهلكي تقالك الرومانك اللي لقلي انت هذا تشيب لقويني كويلك الارقتين نيك هتنجي سوى فارقين وحكة سمية وقيب كستقل وحبه ويلي سيد النبي عليه الصلاة والسلام حاضر مرين حتى بالرجال عبد الرحمن بن عوف فايني markaasuu cabdiraxmaan ibnu cawf la isla daldalaya xoolihii iyo lacagtii buu daldalaya ilaa 200 oo wiqiyadood oo lacaga uu soo dhigaya meesha marka lacagtii culusay ma tahay la warqadii ma wiqiyadad lacag sideedii uu soo dhigaya miisaanku diwat wuxuu dhan Abu Bakar baa bakar la yaab badan Abu Bakar nin la baratamay isaga ma jiro waxa uu gaaray heer isaga leena albaabada jannada ka doonta ka gelisa Abu Bakar oo qarantaad halka uu gaaray gaarsiin adigoo kale buu awood dadaalo uu shaqaystay Abu Bakar wuxuu gaaray heerka uu gaaray waxa markaa la tilmaamay maalmaha ka mid ah wuxuu Abu Bakar heerka ku gaaray horta waqtigiisii oo dhan uu Ilaahay daacadiisa ku amir ama waqtiga uu Ilaahay daacadiisa ku amirtay jannada albaab kasta ka gelido maalmaha ka mid ah Nabiga Alayhi Salaatu Wasalaam wuxuu kuwa idinka ka mid ah sooman saxaabadii Abu Bakar bari ya Rasuulullah anu waa sooman kuwa idinka ka mid ah maanta booqday mid mariida oo muslim aniga ya Rasuulullah waan booqday maanta kuwa idinka ka mid ah maanta mid muslim oo dhintay sabuutiye ilaa quburaha anigu waa sabuutiye rasuulka Ilaahay hadmale amalkii Nabigu soo qaadaba waa sabuutiye Nabiga Alayhi Salaatu Wasalaam wuxuu Abu Bakar waxa idinku jira oo loogu yeeray sideed albaab ee jannada loogu yeeray wadaadka Abu Bakar ya Rasuulullah halkeen ka jooga saasama Abu Bakar waxa ka mid tahay kuwa sideed albaab ee jannada loogu yeeray ka doonta hadgal leeyahay Abu Bakar oo maanta keenay markaas Umar ibn Khattab waxa lagu wariyaa inuu yiri waxaan isii maanta arintu adagtay Abu Bakar waliga uu ka fadhiyaa maanta ka badi hadaba waan xisaabtay maanta Abu Bakar dhinac iska dhigo ka badi baan anigu markaas intaan xoolaha laba ka kala dhigay ayaan qayb soo walwaalay nus xoolihii wuxuu hanti lahaayo dhan waa ka iimaan baruufis hanti wuxuu lahaayo dhan intuu laba ka kala dhigay ayuu qayb soo walwaalay soo kicay marka nabiga uu keenay rasuulka Ilaahay iga qabanayno waxa laakiin iga yaabiyay buu iga badiyay Abu Bakar وريسي ولم بريف سوفر فرنيو سوود حسابي أي تقول سوود النبي قوكين صلوات الله والسلام عليه مركب أبو بكر والله يقرأ أبو بكر هنتي سنتي طيب ومحاض قط من عروض هذه محاض قط من ذلك قولوا يا أبو بكر يا رسول الله أبقي ورور من إلهي يرسول كين سيدا الله إيمان الله يقبل بالسنين الله حتى لو ديما كان قاعدون إلهي هو آمن سنة وعلى جهة بعضنا بنضعي ومحي عروض عني طورة ومحي بري عني طورة ومستقبل كذا محي ذيلي طورة صودي ما شبكم مع الله وحوم اللي يدرس مين مكان سوي فلسفة اللي وعلى جارا بروجرام سنضع صوص بس قاعد شغل الله بحياة من السيد دي ولا ذيل كسين قاعد شغل يسمى مكان بعد ما يبرد وأدوية وحي بحساب السيطون وقعد وحوي وسنضع صوص أنا كذا أنا من وسيم قاعد شغل يعني ummadan Soomaalida dharkiisay markay wada baafadeen gigtay tankiina macluusha ka baxaysan baa lagu ninka joogo dalka Soomaaliya la arki maayo maanta inuu qoxootay ku dambeysay ma 19 maran uu qoxootay ku dambeeyay marka bin aadmin maxay inaga hadaba keenay aragtideedii baa noqotay adduun haweeney mu'minad ah ay inta dagaalkii gashay ninkaagii waa la dilay marka sayna waa loo yar ala khalaas معادل واحد إنسان يبيني أو مثلاً ما هو على عمرين بقف كبعي لين هذا الذي سوى
markaasay tin war dhageystay ninkaygana aad sheegaysaan waxaan aqaanin bay tinin waa adkaan anta badan u baahan awdu daliigi tiri nin heligiisa wax dhameeyo u baahan heliga wax ku dhameeyan il weligii rasaaq mu ahayn bay tiri waxna ma arsaaqi jirin ee kii adkaalkani wuxuu cunayena wuu dhintay allihii rafaaqaayada wada arsaaqii isagii anigabana wuu nooliyo wuu jiraa waa daa'ima u waarna kaalihiina arsaaqay wuu iska jooga ee ninkii waxoogaa wuxuu ilaahay nasiiyo u qayb goyn baa socday bay tiri marka ilaahay wuxuu nasiiyo u qayb goynayo halkii baa socday iimaanku waa kaawle abubakar haddaba sidaa buu fakiraya markaa buu yidhi rasuulka ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa ula yimid aan ku soconno hadba intay kumay dhammaan had baa xaggan u caraday oo xaggan u caraday oo waxay la baxaan waaye xooluu waaye hanti kalu waaye wax laga yaabaa cayrtood leedahay adigu anu maxaan la baxa bal saxaabigan cajiibka badan le aynu eegno waa saxaabi la yidhaha culaya ibnu yaziid culaya ibnu yaziid waxa uu isagu markaasi eegay wax hanti u leeyayba uu waaye wuxuu la baxaba uu waayo ilaahay jidkiisa uu kula baxo wux isagu uu ku dadaal gelana wuu waayo waxba ma haysto waa cayn laakiin intuu habeenkii isagu xagga cibaadada ugu dhaqaaqay masaajidku iska yimid iyo mixraabkiisa wuxuu galayba intuu masaajidka galay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryey waxa uu yidhi hadalkan la tukaday uu ooyey salaadii markuu dhammaystuu yidhi allaahumma ilaahayo buu yidhi innaka ilaahow adigu waxaad na fartay inaan dagaalanno waanad na jeclaysiiso waxaad tidhi dagaal gala iimanaad yeelin ilaahayow wax intaan ku doogaysto aan jidkaaga ku galo amba aan kula baxa ilaahow imaad siinin ilaahow haddaba anigu waxaan sadaqaysanayaa caawoon la baxayaa dunta cusmaan la baxay 900 awr awda lacag ma haya awrna ma hayo ilaahow anigu maanta waxaan sadaqaysanayaan la baxaya yacni dembi kasta dulmi kasta oo يعني يستمي أحد مسلمة أيان إله صدق استعاورنا الله إله هو كسلام أوسين دعين الله بوكس لكن أردي قطعوعي ما الكي نبقاسي أنا الدنيا دنبي يجيستي إله هو حيوت من أيان أنقول نبكستو شركي يا أردي شرفت إذا بدني مدى إذا لو جيستي أيان إله هو نعاو صدق يستي الله بحي waan wada saamacay intaba waa iga sadaqoon adduunya la baxay ninkan wuxuu la baxay samaanta qiyaamaha nabigu mu horan adadruuna man al-muflis ma garanaysaa ninka cayta marka yaa rasuulallah ninka caydi waa ninkan xoola iyo alaab iyo lacag aan haysan nin wuxuu caydu kaama waa ninka maalinta qiyaamo imanaya isagoo soom iyo salaad iyo cibaado iyo taacad iyo khayr badan leeyahay imanaya haddana kan isagoo caayi kan isagoo dhiigiisa daabsay kan isagoo cirdigiisa iyo sharaftiisa waa ortimay kan markaasaa inta wanaagiisii laga qaadaa kan la siinayaa kan baa in la siinaya wanaagiisii oo dhan baa ku dhammaanaya dadkii uu bulmeeyey adduunyada marka looga kala wada qaado markaasaa dad baa hadhaya qaan kule inta xumaantoodii lasoo qaada isaga lagu horayaa si loogu ciqaabo ayadna waa taaguu nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkan wuxuu leeyahay ilaahow arrinta maalintaas sidaad igu miisaami lahayd taasaa nimanka ifka ku sadaqaystay anigu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loo warramay nabigu wuxuu yihi ayna mutasaddaq ilaahay baa u warramay war ninkii calay sadaqaysanayay mee markaasaa waa laysoo dargaamiyo cidna la istaagay markuu nabigu ku celceliyey ayuu wuxuu leeyihi malaadaaba laguu jeedaa ila waa kan cidnaba hadli weyne yaa rasuulallah mu'min waa wuxuu rasuulka ilaahayow anigu waxaan idhi markaasi sidaa baan idhi xalay wuxuu leeyahay waxay noqotay ilaahay wuxuu ka tegay sadaqo weeyaan kuwii sadaqaadka min almutaqabbaliin kuwa la aqbalay ka mid ilaahay uu ka aqbalay subxaanahu wa tacaala hayba maray waxay isagoo nooloo dhulka dul socday kuwaasay ahaayeen mu'miniintii qiimiga badnaa fii sabiilillah ilaahay diinkiisii bay islaam u soo galeen waxaa soo intii imisay noqday ragga iskeenay 30,000 oo nin baa isa soo taagoo saxaabadii qiimiga badnayd oo nin walba uu rabo kuleylka inuu sii jeexo inuu dhibtaxan ogolaado inuu ilaahay diinkiisa u dhinto janno wada doonaya 30,000 oo nin baa yimid laakiin meeshu waa kuleyl weyn waa xagaa daran waa saxare waa dhul dheer socodku dhib buu ku yahay
laakiin talow gaadiid miyay haystaan ku filan oo wada qaada saxaabadii rasuulka oo nebigu ku jira salawaatullaahi wasalaamu calayh? maya. wixii gaadiid la isku keenay iyo wixii ay hayeen oo dhan waxaa la helaya haddana 18 nin oo awrkula iska daba sugayo iska daba nisantay. mamukan maalan kiiloogu raacaynta kale ku yar neefka wastaane kuweelka cad lau aasmayso uumigii dhulka ayay gelayaan. maaha wax sahlan oo fudud maaha. markaasaa waxa weeye 18 nin baa awrkula iska nasnasinayo iska sugayin. 18 bar adigu qiyaas intuu ninkiisa markuu intee kiilo jaro ayuu mar intee kiilo nasan doonaa markaas. say kula tahay markaas runtii waxa weeye saxaabada iyagoo sidaaya bay baxeen. haddaynu dhinaca eegna waa mu'miniintii weeyaan. nin walba uu iskeenay, mid isagoo ooyayay, mid isagoo maxaan ku dhahay yacni waxa weeye xoolihiisii oo dhan wada yimid. nin walba waa is yimid. 30,000 oo nin baa yimid. waxaa jira qolo suusa baa jira. suuskiina maxay noqdeen? suuskiina taariikhdeena aadan usoo aragnay. waxaa jira raashinka suus baa ku jira soomaalid badanoo xabadaada iliga kaaga dhacda waad ku bukoonaysaa. xataa muslimiintana suus baa ku dhex jira. waa munaafiqiinteenu. munaafiqiinta iyagu maxay yeeleen? dadku ma wada safnaan. inbaa iimaanku dhab ka yahay, inbay waxaanay beenbeen iyo dhalateed ka tahay, inbaa adduunye ku gaadhaysa, inbaa maya dana kala ku wadata, inbaa mayana isku qarinayso oo le nebigu haddii aad ka weecatid waaba markaasi gaal baa lagugu xukumi doona oo cabsigun ay haysaa. munaafiqiinta istay noqdeen. munaafiqiinta nin walba wuu tusayaa. waxaynu soo qaadana qayb ka mida munaafiqiintii. waxaynu soo qaadanaynaa munaafiqiin weynaaye Jadiid ibnu Qays. Jadiid ibnu Qays horaba khayr ugumaynaan soo sheegin. waynu xasuusanay halkan nagu soo marray soo maha maalintii baycatu ridwaan ee nebiga geedka hoostiisa lagula baycada gelayay ee sulxul xudaybiya ee 1400 ama 1500 ee saxaabi nebiga ay la socdeen ee heshiiska dhaarta adag nebiga lala gelay inaan laga cararin oo laga fulayoomin. ilaahayna ugu abaalguday inuu laqad radiya allaahu cani lmu'miniin. ilaahay mu'miniinta raacuu ka noqday. Jadiid ibnu Qays waa ninka keliya ka dhuntay maalintaas wey. uu joogay meesha laakiin intuu awrkiisii isku toosiyey ayuu iskaabiyey oo nebiga inuu heshiiska iyo ballanqaareedkaa la gala ayuu ka dhuntay. khayr mu'miniintii oo dhan baa la noqday ilaa Jadiid ibnu Qays mooyaane. sooma intii meesha tag deekaarqabaha weeye ababan. maxaad maanta ka sugi? weli wuu nooliyey. weli muslimiinta suu isku dhex jira weeye oo ku dhex kabanaya. waa munaafiq. waa urka gaalow. Jadiid ibnu Qays nebigu isku soo maqiiqay afadaga. nebigu u yimid wuxuu yaa rasuulallah, rasuulkii ilaahayow hee waad taqaanaa buuri anigu nin haweenka ku baasbaan. haddaan naagba arkaana waa lay arkayaa wey. bas weeye haweenka inaan ku ba'an oonan iska xejin karin baad og tahay. ana ka saqayo waxaasaan ku ba'an oo naftayda haweenka iskama xejin karto. halkaad ku duulaysaana waa reer bani asfar wey. waa dumarkii cadcadaayar oo waankaa loo tegayay. markaa rasuulkii ilaahayow hadhow markaad dhulkaa tagnayna naagaha cadcada inta ruumaanka aan is-xejin kari waayo oon deetan zinadii weyneed ku dhaco oon deeteenunaar noqdaaban ka baqayahay. rasuulkii ilaah waa fidnay aan iskaga hadhay bal siyaasadii ceelada sameeyay. ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa leh ومنهم من يقول اجدن لي ولا تفتني. وآيات القرآن إلهي يعني رسولك لو اجدن ولا تفتني هاي فضيحتين. هنو أنا بقول أنت لقينا الزنا كله وفضيحتين هاي فضيحتين إبدال يسكي سامع أنا سكجا هذا مدينة أنا موي. إلهي بقى فضيحتين يقول منكم وحوي النفاق أو ومنهم منافقين توحى كمذا هو صدا أورندون. إما كيف فضيحتين لما تسمع إلهي بقى فضيحتين والو قادين Jadiid ibnu Qays. qaar kalaa dadkii shuushadaynay markaaba intay hadaliyeen hoosta wax ku akhriyaan bay leeyihiin oo xaggee tegaysan? waa xagaa kulul. dhulku waa ooman. waa saxaraa. waa meel fog. war cadceedu yaana idin layliya amraad. waa kulayla iska fadhiyo iska hargala. maxaa idin dhibaya idin rafaadinayay leeyihiin markaas. balse dadkii waxaan ku akhriyayaan. markaasa ilaahay baa fadeexad waxay leeyihiin an laa tanfiruu fi lxar. waa kulaylka ha u bixina. waa kulayla fadhiya bay dadka ku leeyihin. qul waxaad ku tiraa nebi allow naaru jahannama ashaddu xaraa. raggii mala kulayl weeyaano war naarta jahannamaa ka kulayl badan. waxaad u hateen naartii jahannama
adduunyada inaad yar cagagubiyootaan ayaa diideen waxaad u haadmeenood isku dullayseena naartii jahanname ayaa idiin dambaysa wey naarta jahannama ayaa ka daran sidaa ku dhagu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala maalintaa munaafiqiintiina qaybtaabaan ka soo qaadnay mu'miniintiina qaybtaabaan ka soo qaadnay waa la anbabaxay waa la socotay maxaa dhacay markaas nebigu wuxuu kaxaystay ciidan 30,000 oo nin abuu kaxeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhaqaajiyey wuxuu goynayaa masaafo aad u adag buu goynayay wuu socotay markuu dhexda maraayo waxa waxyaalaha aadka u layaabka badan le nebigu markaas saxaabadaas wuxuu maray halkii lagu rogay lagu halaagay reer Tamuud halkii reer Tamuud lagu halaagay waabil qura ayuu maray markaas waa ceel yaroo biyane dadku way qoomayeen bas bay taagayeen nebigu la tashrabu ha ka cabina waa meel ilaahay caadadiisii ay ku dhacday ilaahay qoom ugu carooday uu ku rogay reer Tamuud reer Tamuud lama garanayo waa qoladii nabiyullaahi saalix loo diray ee nabi saalix waanu ku rumayn doonaa ilaahay sallaxaas sibta ah hala ka soo saaro hadduu halka soo saaro magacaas sibtaadu hal ilaahay ka soo saaro bal qalbi adeegay waxa uu baanu ku rumayn doonaa ilaahay bartibu ka soo saaray waxba kuma aha hashiba laakiin ilaahay waa taase ilaahay imtixaan uu soo raaciyay maalina waxa biyo jiray iyada cabaysa maalina idinka ceelka u arooray lagu iskuma tageysaan ceel haddaad taabataan hashaana min taaban doonaa waxoogaa bay ayaama yar meermeeran yar wareegeysteen hashii bay buuqna gooyeen ilaahayna wuxuu yidhi waa qolada noloshoodii baa loo sheegay cadaaba ku dhacay waxaa la yidhi 3 maalmood aqaladiina taxquududa ilaahay wuxuu roogiyay 3 maalmood baad noolaanaysaan bas 3 maalmood tirsanaan koow laba saddex waa gabagabayeen ilaahay wuu sheegay dadka caynka way markaas inta lagu qayliyo dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wada nogi markaas waliba waxay mufasiriintu tilmaamaan markay reerta fikirayaan baa waxay yidhaahdeen oo muxuu sheegayaa halaaga aqalada niman waxay farsameeyeen qaala intay aqalada qodaan buuraha ayay xarbayn jireen laakiin buuraha dhex geli jireen intay ilaahay waa kaliya rabbi subxaanahu wa tacaala waa qur'aankiisa inoogu tilmaamayeen وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد سمعت فلح وين انت يسوق ويان اي وادي كسوقين جابوا الصخرة بالواد يعني نقع وين بيسوق هذه مكاسي نحن برتن كذا كيري ويقول قرية رؤى قال لك اسم سنين محصن افكاد يلف سنين حاولت البحث مقصلاتنا بدنا كنا ندورهم يتبغوا فيها اي كسم سنين وكنا بحي البوران عندنا بيقولي احنا دامنا البوران بان تقلينا تونا ولا نحد شيء جسم تو الوقيلي بور لنا هذا نحقيلينا بالكاميرا الرصاصي بير الله يسوق قيلنا والسكوسه داير وصلنا والثقه عندهم طعم يا سبحانه وتعالى وذوقي هو هلكي يقول النبي مري باسم الضياع كبنينا حتى النبي عليه الصلاه والسلام وحو امري ان اعطي قوش كي maxaan ku raday biyihii qoosh hadii lagu qooshtay لا أعطي قوش لو تميثلا حول الله سيب النبي عليه الصلاة والسلام أنه نواب وكاس النبي يسوي أويديكو أوي يقوم بيسن ورب النبي عليه الصلاة والسلام بعليني يقول بعليني كطلع بالمش كل عبد الله سبحانه وتعالى قوم كلهم حتى أبو سيمري صحابة بوتصي النبي عليه الصلاة والسلام وترس الأصول والنبي بركة لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم وقوة نفوذ بالمية إلى هيروي إلى لها لغروي هجلنا أن يصيبكم ما أصابهم إذنكم كعب ثقة إن إذنكم دعوة يكون عيوطنا هذه أركي عادش مركز نتغط هل كي أبراهيم لغروي وعلى مليه غرط كان يقطع أخلاق البريس وكان داش وتلمع أرض وعليس كي يقطع فالمية ومن الله عربي سيكون عليه فميركز الله عربي سيكون دعوة من لغروي سيداو بدو دكتورانيسا نبي عليه الصلاة والسلام وأمضى حي وصعودي وحويا وضركي وحا صحابتي كان قوضي بيهي باكا قماضل انتدي باقو يراتو قبار سكون نقطيك إلا أي جيلو بيهو سميرتين سوو سميرشنا لما قردين عروش قوسكي بي نفكر دي مركا يسيقى بالبيهي وحينك قبصة النقص إلا أعطي من رفاتي تنتعرض مركي دم النبي عليه الصلاة والسلام إلهي نوبري بان رسول كي إلهي ويقول عمري عنطبها يستانو لأنه يسكو صوريات وحيا
بيواري وحبن التصوريا وودعي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي انتني بغبني وكاس إلهي سبحانه وتعالى روبنا ودع السيرة سبحانه وتعالى روب كاسي وإلهي سبحانه وتعالى وكنتو به شيء إلى أنت معاهم قرضي أي بيه كدر جيل أي عقنادين صحابني بيه كدر جيل ويلكني كبر سدين حوله دي بوراصدين وسعر إلهي بقى ومعجزات كالرسول كوي إلهي سبحانه وتعالى يا روح وشوي ويبرواقيستين markaas waliba nabigu markay barwaaqadii isla dhaceenay damiirsadeen ay waliba bushaarada u sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam ataro waxay bushaaradaas tahay wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam innakum sata'tuuna ghadan in shaa allahu tacaala can tabuuk barritoodaa tabuuk joogsan doontaan wa innakum lam xataa yabca annahaar waxaad tegi doontaan maalinta bartankeeda ayaa tegi doontaan markaasaa nabigu wuxuu leeyahay markaan aan tabuuk tagno biyaha halkaa yaala axad dhadhamin karaa ma jiro anigoo imaada mooyaane nabigu calayhi salaatu wasalaam waa bushaaro adag sooma maxaa ku jira markaas axad dhadhaminayaa ma jiro anigoo imaada mooyaane nabigu calayhi salaatu wasalaam waa bushaaro saxaabadii ku adag biyuhuba u daran imanka way coqonaadeen oo way dhargeen laakiin berritooda way ogyihiin saxaraha iyo kulaylka iyo dhirta ka dambaysa way ka socoteeyeen halkan saari qaata biyo laakiin waxay isleeyihin imankaad magaaliya tabuuk iyo meel biyala gaadheeno weydiintooda isleeyihin barraha tabuuk tegi doontaan biyaheedana axad dhaqamin karaa ma jira nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa aan idiin imaado aadayan mishaara saxaabadu way ku farxayaan oo ogoli maaraad buu nagu leynayaa waa dooranay soo baxa saxaabada iyagu waxa weyaan mishaara u tahay saan jannada lagu sii dhowaanaya waa arrin u yar dhawowday laakiin adiga maxaa isagoo arkaysa markaa وما عندك مثل عراضة طلعيني والله ما ربيت يقولوا لا عبني إلا أنا وانمان كان يصير دورين بيا عبد ورئي وغيري هذا الفاقلين لكن مؤمنين تلم فهم ميا إخواني بالله وين أعكل أيات هيجي نامركاس قال أنت نال كافير شوف سنة دبا ير لابن عن كل لابن صحابة الرسول كإيمانك والسمية معرفة العجائب إيمانك والسمية معرفة العجائب هذا ترفضا waxa ajaa'ibtu sameeyay kamid ah nin leeyahay Abu Khaysama ajaa'ibtu nigeena u laameen Abu Khaysama waa mu'min laakiin waxa jirta oo mar shaydaanku intuu ka yeedsid calayhim ku yara seeta beeray laakiin ninkan nin ee mu'min iimaan ku jira uu ambabara marka uu buuriyada ibliis ma ku iska tuwa xawaniyaaba adigoo wuxuu taayay cibaadada qaamat salaad maayo markaan umaadkii fadhida warkiisa uu ugu wadaa oo uu koonay markuu ka soo booday dumarkii orabnagay inuu iska sii yimaadeen marka horeba laakiin waxa uu gaabo yar lugta u jiiday marka dambe ama baraya mu'minka uu iska sii deyriyay biis Abu Khaysama shaytaankii baa markaa isaga quddiisa weerar ku soo qaaday laakiin waa mu'min Abu Khaysama ilaahay rasuulkiisa uu jeclaa dagaalka uu talagalay inuu ka qayb galo inuu mu'miniinta ugu ajaa'ibta badan la noqdo ayuu doonayay laakiin Abu Khaysama maya ma dhicis Abu Khaysama nin nayala ba'a dagaalkii Badr ayuu qorigtay isagii inankiisa u qorigtay si ilaaliya isagii inankiisa u qorigtay aduu reerka ku xariyo inaan baa tagaysayna weeraysa ma ana tagay ana tagay baa isku hayay Abu Khaysama waa ninka sidaa qorigtay ninkaas maanta dayaldayay inuu ku hadalay Khaysama isagoo iska warramaya waxa uu yarbacay oo wadkii weer gaari doontaa way siir saadu gaadiidina cajiibada sitaa xoog badan wadkii daba boodi doontaa deel gaari doontaa siir socdaa waxa taa Abu Khaysama uu iska yaacay oo markuu nafti yar reebay ayaa duhur cabceed aad u kulushahay waa xagaawi waa xilli beeruhu si fiican ay u baxeen ayaa laba haween u lahaa labadiisii haweena mid kastaaba Abu Khaysama waxa uu sameeyay cariish yar oo sameeyay oo beerta looga dhex sameeyay markaasay u rushtay markaasay barwaaqiya nicmo kastana u dhex dhigtay waxa uu xarba loogu sameeyay waa waab yar cajiib badan oo loo sameeyay Abu Khaysama markuu soo shaqeeyay soo laabmay ayuu si gurigeedii ku hoy wuxuu arkay haweenkiis oo inta guriga u hagaajiyay oo rushay oo qeylkiiba qabowga dhulkii la rushay lagu qaboojiyay qabowga ka soo baxay aadiyaadii oo nicmadii aadiyaadii ayuu Abu Khaysama soo galay markaas Abu Khaysama uu fikiray fiilkii baa taqaatay
xorriyadiis tul saaray buu dareemay markaasna iska tuuray waxa uu kelmada cajiib badan waxa uu yidhi anigu buulo Abu Khaysama ma waxaan ku dhex jiraa buuri fi kulli baaridin ma wuxuu rasuulka ilaahay ma wuxuu ku jiraa qulayn iyo dhibaato iyo safar iyo saric miyuu ku jiraa rasuulkii Rabbi maxadaaga ayaa markaas anfiga ayaa leefayay Abu Khaysamana ma wuxuu ku dhex jiraa في كل بارد وحكستو قبر وطعام مهيئ تطيروا للدياريون للوناتين وامرأة حسناء ناقلع بدن وميلان كأغمو موقطع فسوكي ربنا مقولك الأركيب وكنا اعترابه وحوري ما هذا بالنسب والله ثاني عدالة ما أقول عدالة ما آرام نوري إن الارتدي نقوطون برنامي إن هركي نعر صدر إما كصحيدي ضيين العلم سيدا إما كيرو مرير يرلفكو سمعورا intuu saahidiisii xidhay ayuu isa sii daayay keligiibuu saxaarigii socday weliba hadday iyagu kulaylka ummadna ku socdeen oy farabadnaayeen oy markaasi waxa weeye dee isgargaarsanayaan isagu keligiibuu saxaaraha jeexayaan markaasaa jidka waxay iska sii heleen say markaa ragga taariikhda bartilmaamayaan abudar alkifaariyu keligii socday markaasaa sidii loo wada socday markii la dhowaaday wuhi abudarrow warba waxoogaa iga yar dambe anigu dembigaan galay oo kaleba ma jirin abudarra isagu waxa waa nin dabiicaddiisuba ay tahay gooni socday tahay nebigaaba ku tilmaamay markaasaa wuxuu raximallahu abaadar maalintaasuna ilaahay abudarraha u naxariis yamshi waxad wuxuu soconayaa keligi wayamuutu waxda keligii buu dhiman isagoo cidna socda wayubcabaan la soo bixin doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam abudarra isagu waxa waa nin shaqadiisuba ay tahay gooni socodka isagoo arrinta ninkani cadhay kulama jirin laakiin nin iska yar gooni socda waa abudarre oo keligii iska socdo iska iman laakiin nebigu waa ninku alfaadaa ku yidhi buu marka insha allahu tacaala mar kalenu tilmaami doonaa bal siduu u dhintay cajaa'ibteeda keligii isagoo ah markaas walaashii ay la socoto ayaan arki doonaa markaasoo meel cidnaa ku dhintay markaa muslimiin socotiin markay arkeen leeyihin ma abudarre alkifaariba nebiga hadalkiisii bay markaa sheegeen inuu nebigu tilmaamay in keligii dhiman doono keligiisa waa inuu dhiman doono abudarra alkifaari war banigaan cag dambeeba anigu dembigaan gelibaa weyn aan kaa horeeyo isagoo markaa kulayl nebigu tabuug joogo oo kulaylkii markaa sidaa ay u qaadqaadaysa yacni laan habaabisto ila waxaynu aragnay markay dekedaa joogsatay cadceedu aad u kulushahay waxaad moodaa biyobiyaad xagga hore moodaa nalanteedkaa ku yacni kuu sawiraya markaas inay biyo markaasa dhalan habaabistiibaa waxay u tilmaantay dhalanteedkaasay siisay markaas dhalan habaabistii markaasaa sheedda wuxuu ka arkayaa dhalan habaabista oo biyuu moodayay markaa markaad sheedda aragto waxaa dhex socda inay wadwadaan moodaysaa si biyo muujadayo hir biyo oo kale markaasaa nebigu markuu arkay buuri kun abukhaysamo noquu nebigu calayhi salaatu wasalaam abukhaysamo wuu waayey markaasaa nebigu abukhaysamo wuu tabay tabistu tabayna nin markaas waxa weeyaan markaasi yacni sidaa ay u qaadqaadaysa ayuu arkay markaas nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu leeyahay nacam kun abaa khaysama war abu khaysama noqo waaba isagii abu khaysama wey nabka soo yimi ibliiska ma hadhin sooma ibliiska ma hadhin kuwani fillah waxaa loo baahayay inaan ibliis loo carin kaas waa mu'min weeye markuu jidka goynayay isagoo isdagaalaya oo markaas waxa weeye rasuulka ilaahay baa rafaadsan ayuu jidka sidaa gooyey koox kale oo munaafiqiina baa jira jarayaan markaasaa inta la sii socdo way hari kari waayeen muslimiintay sii raaceen markaasaa weliba waxay isku dayi doonaan wixii ugu khatarsanay munaafiqiin isku dayaan bay dagaalkan isku dayi doonaan markaasaa waxaa dhici doonta fadeexadii ugu weyneyd ee munaafiq ku dhacdaana dagaalkan bay ka dhici doonta in munaafiqiinta ilal abad la garto maalintii la gartay hebelna waa munaafiq hebelna waa munaafiq la lahayay oo maalintay dhici doontaaba waa maanta markaa munaafiqiintii rag baa bayina hadheen in baa weli socota waxa markaas ay leeyihin munaafiqiintii waxay dacaayidaynayaan nebiga ayay dacaayidaynayaan iyo saxaabadiisa quraada ah oo markay sii socdaan markaa bay leeyihin war nimankan quraadii quraan akhriska badan leh waa niman wax ka cirweynba lama arag waa niman cirweyn calooshoodu bay u shaqeeya waa niman calooshooda u shaqeeya calooshoodu bay buuxiyaan oo xunbay ku guraan markay cuntada gaadho waa niman khatarina weeye waxaa loo jeeda nimrandiis
إنه يتري وقت لنتنا كأني يعني وأنا ما خطر حق عطوا دجال كمركي إنه فلتنا وفريو وفري شجعهم قلنا وياي markaasaa nimankiibaa la maray maxay nimanka ku dhaliilayaan waxay ku dhaliilayaan inay yihiin muuminiinta bay ku dhaliilayaan qur-aanka awgeed bay ku ceebanayaan waxa qur-aanka bartoo dhan baa waxaad waa sida munaafiqiinta iba ku yidhaahdaan oo waxaan malcaamad qur-aanka u dhigtay muxuu garanaya buu leeyahay waxa qur-aanka dhigtoo oo dhan baa saas qur-aanka dhigtay diinta badow carab u dhigtay oo qur-aanka dhigtay marka wada waa badow xataa uu garanaya ma jirto kaliya marka waa sababtii uu waxaan ku dhaliilayay ku yar badaweynay nolosha miyay fahmayaan ba waxaan dad wax kasta ku akhriyo fahmayaan bay ku leeyihiin maanta ee maragii sidaa la horay u jireen saaxiibada ba waxa lagu xukumay dhigayso hada saaxiibada tinay isku mabdaatihiin horay u horeeyeen quraanka tayalsoo hada daasaniidooda quraanka ku fadhiisiyo Soomaaliya ragaalka ugu talagalay meel kale oo fadhiin weligood bay iska jireen qasacada in cadceeda la saarko halkaan noqon markay iskuulka noqotana mar yar oo fiican la xidho كويسير وقطوع بدل لو فريستو واكا معلي راسك في على فريد وكو سو غلو markay iskuulka noqoto marka la macallin yar oo neersito ka argagixinayo ka fafinayo inuu soo galo daafanidaa ceedana ku dhacdo markaan dhiyarayo waliba aan la soo qooldiqin baa imanaya kana dhigtiisa leeyahay markaas la qorxinay angi quraanka sidaa baday ku dheeldheelayo saaxiibada dhan isku mabdaahayeen balay nagu fiirsanan way ku dheelmeereen markaas ay u ciyaar bay ka dhigteen markaasaa waa la maqlay nabiga loo sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu dagaalay markaasuu yidhi war maxaad samayseen waa maxay waxaad samaynaysan markaasaa rasuulka ilaahay miyaanu qamdanay rasuulka ilaahay sidaa nagama yahay sidaa nagama yahay umaanaa jeedin sidaa waxaanu ka dhiganaynu madadaalo jidkaanu isku dhaafin waxoogaa jidkan dheeraadan iyo kuleylkan iyo rafaadkan baynu isku maaweelinaynaayo faslow baa ka dhiganayna rasuulka ilaahay markaasaa nabiga calayhi salaam waxa uga dhiganay waxaan baa dhabka ahayn kaftankan inay kaftan ka tahay waa naga kaftan bay yidhaahdeen markaasaa ilaahay baa qur'aan soo dejiyay muxuu munaafiqiinta badeecadii rabbi subxaanahu watacaala waxaa ka mida kuwo odhanaya intay markaasi ay diinka rabbi dadka ku dhaliilaan marka leena war maxaad kan u leedina waan iska yar ciyaarayo kaftamayay buu odhay markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay war ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ayaad ku dheeldheelaysaa adood ciyaar iyo wax lagu ciyaaro ka tigateen qad kafartum bacda iimaanikum haddaad baryaroon iimaanana aydeen iimaankii waad ka carabdeenoo waad iimaan beesheen buu rabbi subxaanahu watacaala iimaan laydinkuma hanuunin hadday sidanba iimaan idinka tahay bar iimaanaba ma lihidin buu rabbi subxaanahu watacaala ilaahay ninkun iimaanka ku diiday maadaa iimaan u yeeli toon war axadka qur-aanka ku dheeldheera haddaba ilaa waa hadal carbeed axadka yidhahda maxay waxaanay ka dhigan tahay qur-aankaba wax kale la karab dhig waa iska da sheekasheekiyo caqli iyo qiyaasiyo axadka khiyaaligan u haystaanba qofka qur-aanka xambaarsan wax liita u arkayo waa inaad ogaatid ilaahay iyo rasuulkiisa iyo qur-aanka miyaad ku dheeldheelaysaa inuu rabbi ku leeyahay hadday sidaa warkaa yahay waad gaalowday intaad iimaan lahayd bacdigeed min rabbi subxaanahu watacaala awaani fillaah mowqifku waa mowqif adag ilaahay diinkiisaa layna baxay farcaawa darsi ay noo noqoto aynu ku cibro qaadano inayna ilaahay diinkiisa ku dheelmeelin innaguna maxaan ku dambaynay maanta wuu tukanaya wuu soomaya diintu haddana ceebaynaya markaasaa wuxuu weli aaminsan yahay afkaarta gaalku aaminsan yahay oo isaga ku qanacsan yahay waxoogaa gaalkaa la wanaagsan markaa waa waxaynu gaadhnay heer munaafiqnimadeenna heer baynu gaadhnay aynu nidhaahno haddaanu ilaahay ninka haddaanu aadan baan u jeedaa ninka caaqib dhaalin wuu qodlan lahaa bas weyn qodlan hada waxay raacdaan shayga sharcade khayr lama caatay sharbu la cali hadduu iimaan lahayn ee waxa weeye aada ku qodlan ilaa wuu leeyahay haddaanu samajin oo muxuu sameeyay diyaaradu kiciyay marka buu sameeyay oo kale sameeyay wixii oo dhan maxaa isku toosay allihii abuuray buu abaalkiisa u gudi kari waayay ilma yaraynu inagu dhalay ayaa markuu aabii fiir madax adkaadeen leedahay waxaan waalidin kaarka dadnimada ka saarnaa ana dadnimada kaga saarnaa odaygii waxoogaa ayaamaha biiliyey ee weliba ilaahay uu ku soo dhiibay ayuu isna yar biilin waayo sooma waxaanu adduunyada kaga saarnaa boqolaynu arkaynaa dad ahayn oo rajo lahayn allihii abuureen nolosha u abuuray waxa uu iskugu hagaajiyey ayuu odhan kari waayay shukran waad mahadsan tahay leersitaankii kelmada oran jirteen bini'aadmiga baad ku oran jirteen intaa midna ilaahay subxaanahu watacaala baa looga waayay bal intuu ka tallaabsaday ilaahay diinkiisa buu dhaleecaynaya
ilaahay qur'aankiisa wuu ceebaynayay qofkii ilaahay diinkiisa haystay wuu rabaa ka diinta haystaan inuu fool xumaado si loo naca ilaahay diinkiisa ayuu raba xageed mu'min ka noqon dhammaantaysteenuna markaa ilaahay diinkiisaynu dhinacna ka sheeganaynaa dhinacna waxaan u wadanay acdaabeeduna imankun diinta caaya markaa weli waan ka cumay waan cadhooday imanka ayuu rasuulka markaasi caaya markaasuu yidhi waba waxaa naga cadhaysiiyey noloshiiba saabay noqotay qiimo daray noqotay markaas ilaahay subxaana watacaala diinkiisii ayaynu iimaankiin ayaynu iska aradinayno ka mucminiyo balitan ilaahay ka baqo ilaahay diinkiisa aanu soo waabanay dagaalkii aan ku jirnay noqotay qasabta tabuuk maxaa nebiga iyo dhex maray nimankii ruumaanka ahaa amba arrin ay ku gabagowday meesha xaq iyo baatilkaa ku kala baxaye insha allahu tacaala darsigeena dambe ayay noqon doontaa wabillahi tawfiiq ala saa'irihi najwan maab حول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله وسلم على سيدنا محمد